Asalaamu calaykum dhamaan inta ku xiran YouTube-kana Gamano Production isku soo noqod wanaagsan waxaan maanta idin ogeysinayaa inuu kanaalkeeni hore u bilaabay casharadii hore ee dul socon jirteen aan idin soo gudbin jirnay waxaan maanta daaha ka qaadaynaa koorso cusub oo la magac baxday Tutorials Python af Soomaali oo aad ku baran doontid bilow ilaa iyo dhammaad barashada Python. Waxaad sidoo kale awood u yeelan doontaa markaad dhamaystid koorsadan inaad soo saarto Simple EVC Plus ee isticmaasha shirkadda Hormuud iyo adeegyo kale oo kala duwan. Muuqaalkan waa cashirkii koowaad ama baartigii koowaad ee barashada Python Tutorials af Soomaali. Marka muuqaalkan waxaan kugu tusayaa sida loola soo dego IDE-ga ama bay'ada lagu qoro codeska ama syntax-ka. Waxaa jira marka software aad u xiiso badan markii la yimaado in la qoro Python la isticmaalo. Haddaba anaga mid ayaan soo xulinay waxaan isticmaalaynaa mid la yiraahdo Anaconda. Anaconda waa mid caan ah oo la wada yaqaano waxaa loo isticmaalaa in lagu qoro badda Python-ka ama Python-ka naftirkiisa waxaa loo isticmaalaa in lagu qoro web development-ga back-end-ga. Marka barnaamijkan sidee ku soo degsan kartaa ayaan kugu tusayaa muuqaalkan. Marka si aad u soo degto IDE-ka kow waxaad u baahan tahay inaad soo kacsato Google-ka kabacdina aad ku qorto Anaconda. After Anaconda markaad search dhahdo saan ku soo bixayso linkiga ugu horeeya ee ku qoran tahay anaconda.com ayaad click ku siinaysaa. Okay, marka saad u jeedo Anaconda-han waxaa loo talagalay in data science-ka platforms-ka sida in lagu qoro IT professional codeska iyo waxaasaytay. Anaga waxaas faahfaahin dheeri sida soo magalayna dowlad ayaan dhahaynaa tabka dowlad ayaad ku dhufanaysaa si aad ugu soo degto. After marka halkan inaad u arkaysaa Anaconda for saad u jeedo Windows haddii aad rabtid halkan ayaad click ku siinaysaa ama MacOS haddii aad rabtid inta ayaad click ku siinaysaa ama Linux. Marka anaga Windows waaye 3.7 version-kan ayaan noqosayo waa 64-bit kan ayaan soo download gareysanaynaa marka. Okay, marka soo download gareystid ayuu soo noqonayaa. Saa u jeedo waa 624 MB kan ayaad install lahaanaysaa marka. So aniga mar hore ayaan ku shubtay adiga install ayaan mar kale soo lahaanaysaa. Okay, markii Anaconda aad ku soo shubato soo kacsato screen-ka ugu horeeya ee ku soo baxayo waa sidaan. Wuxuu hayaa IDE-yaal badan ayuu hayaa Anaconda-han laakiin aniga IDE-ka aan isticmaalayno magaciisa waxaa la yiraahdaa Jupyter Notebook-kan ama waxaad isticmaali kartaa Jupyter Lab-ka ama Spider-ka balse waxay ku xiran tahay qaabka macnaha aad adigu u xiisayso. Anaga kan ayaa u fiican oo macnaha version-kiisa waa 5.74 macnaha kuwa kale waa uga sareeyaa. Marka kan ayaan anaga launch dhahanaynaa oo aan soo kacsanaynaa. Marka Jupyter-kan wuxuu ku fiican yahay kuwa kale aad ayuu macnaha u fudud yahay inaad syntax ahaan qorto. Python markii la joogana variable si loo sameeyo uma baahan in la soo declare gareeyo. Kaliya waxay u baahan tahay inaad u bixiso magac ama variable-ka aad u sameyso variable name kabacdi equal dhahdo camal. Tusaale ahaan hadda ayaan kugu tusayaa muuqaalkan. Laptop-ka ayaan ku dhufsanaynaa si meesha folder file-ka aan dhigayno oo inuu gaaro. Okay, marka Python script ayaan folder ayaan ku dhufsanaynaa kabacdi meeshaan ayaan imaanaynaa new ayaan dhahnaa Python 3 ayaan ku qoranaynaa.
si marka variable ama aan idhaahde python filekan aan u sameysano meesha inuu yaalo aad ayuu u fiican tahay hadhow code aa qorto camal meeshaan ogeyn aad kusoo fikireyso aad ayay u dhib badan tahay inaad soo heshid. Okay, marka nameka ayaan bedeleynaa. Nameka si loo bedelo marka titleka meesha ku qoran tahay ayaa click ku siineysaa, kabacdi nameka ayaa ku qoreysaa oo aan idhaahde variables. Markaas marka rename ayaa dhaheysaa. Saa ujeedada marka waa cashirkii ugu horeeyay aan idhaahdo keliya hadda cashirka marka waxaan ku baraneynaa hordhaca gaayaro gaaban. Marka variable marka si loo sameeyo aad ayuu u fududahay. X camal ayaan variable u qaatay, waxaan dhahay x waxaa ku jiro hal ayaa ku jiro marka run ayaan dhahayaa marka waxaan dhahayaa isoo print garee marka x ayaan dhahayaa. Saa ujeeda marka x waxa ku jiro ayuu isoo daabacayaa ama tusaale ahaan another example kale haddii aan ku siiyo y waxaa ku jiro ayaan dhahayaa 4 marka run ayaan dhahayaa haddana markaas waxaan dhahayaa isoo print garee isoo daabaca waxa ku jiro marka y. So 4 ayuu isoo daabacay. Tusaale cashirkan ma ahan mid macnaha toos u bilowday practically casharada kale xiga ayaan si toos u sii gali doonaa hadda macnaha waa tusaale ahaan sida u shaqeeyo IDE-ga aan soo degsanay aan ku isticmaali doono ama koorsadan aan ku wadi doono inaan u isticmaalno Python-ka. So marka waxaan filayaa muuqaalkan ka caawiyay sida ku heli lahayd IDE-ga oo loo isticmaalo Python-ka marka u diyaar garow marka usbuuciga iyo cashir aad u xiiso badan oo aan idin soo gudbin doono.